بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan haddana soo jeedin doonaa 10 su'aalood ee ku xigay kuwii hore waxaana ka bilaaban doontaa su'aasha 11aad oo oranaysa sheeg aayadda quraanka ugu dheer sheeg aayadda quraanka ugu dheer aayadda quraanka ugu dheer waxa la yiraahdaa aayatud dayn suuratul baqara bay ku jirtaa waa aayadda 282 su'aasha 12aad sheeg aayadda quraanka ugu gaaban oo aan ahayn xurufaha go'go'an sida yaasiin iyo taaha iyo alif laam miim aayadda quraanka ugu gaaban waxa weeye suuratul mudaththir bay ku jirtaa thumma nadhar aayaddaas ugu gaaban quraanka kariimka waxaad sheegtaa aayadda quraanka ugu weyn aayadda quraanka ugu weyn aayadda quraanka ugu weyn waxa weeye aayatul kursi oo suuratul baqara ku jirta aayatul kursi oo suuratul baqara ku jirta waxaad sheegtaa suuradda ugu weyn quraanka suuradda quraanka ugu weyn ama ugu fadli badan dheh suuradda quraanka ugu weyn waxay noqonaysaa suuratul faatixa oo qof walba oo muslima laga rabo inuu xafidsan yahay waxaad sheegtaa waa su'aasha 15aad waxaad sheegtaa ajarka uu helayo qofkii xaraf quraanka ka mid ah akhriya waxaad sheegtaa aayadda quraanka xaraf quraanka ka mid ah qofkii akhriya ajarka uu helayo alif oo kale ama ba ama ta oo quraanka markaad akhrisid intee ajar helaysaa qofkii quraanka akhriya xaraf walba wuxuu helayaa 10 xasanaad ama 10 ajar buu helayaa saasna nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam alif laam miim buu yiri ma aha xaraf ee alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf su'aasha 16aad maxay tahay suuraddii ugu dambeysay oo nabigeena lagu soo dejiyay calayhi salaatu wassalaam maxay tahay suuraddii ugu dambeysay ee nabigeena lagu soo dejiyay calayhi salaatu wassalaam suuraddii ugu dambeysay oo nabiga lagu soo dejiyay waa suuratu nasr idaa jaa nasrullaahi waalfath waxaad sheegtaa aayaddii ugu dambeysay ee nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wassalaam waxaad sheegtaa aayaddii ugu dambeysay ee quraanka ka mid oo nabiga lagu soo dejiyey aayaddii ugu dambeysay nabiga lagu soo dejiyey waa aayadda 281 ee suuratul baqara wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah thumma tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yudlamuun su'aasha 18aad waxaad sheegtaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim ma quraankay ka mid tahay acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim ma quraanka ayuu ka mid yahay acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim quraanka kama mid aha laakiin amar baa ilaynagu siiyey inaynan intay quraanka markaynu akhrinayno aynu ilaahay shaydaanka ka magan galno
laakiin qur'aanka kama mid aha aayadihiisa. su-aasha 19aad waxaad sheegtaa magaca habeenkii qur'aanka la soo dejiyey. waxaad sheegtaa magaca habeenkii qur'aanka la soo dejiyey iyo bisha uu ku jiro iyo bisha habeenkaas uu ka mid ahaa. habeenkii qur'aanka la soo dejiyey waxaa loo yaqaanaa laylatulqadr. habeenkaas waxaa loo yaqaanaa laylatulqadr, wuxuuna ka mid yahay bisha ramadaan. su-aasha 20aad yaa dadka ugu khayr badan? yaa dadka ugu khayr badan? nabigeena calayhi salaatu wassalaam ayaa arrintan noo sheegay. wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah. waxaa dadka ugu khayr badan qofkii barta qur'aanka dadkana bara. qofkii qur'aanka isaguna barta dadkana bara. 20kii su-aalood oo ku xigay intaas ayay noogu egyihiin. ilaahay hana waafajiyo khayrka, cilmigiisana ha noo ziyaadiyo. cilmigana laysku soo dejin maayee waa in la bartaa. hebel baa wax loo sheegaa iyo hebel baa ilaahay gaar ka dhigay iyo waa lala hadlaa iyo waxaas waa sheeko baraley. ee qur'aanka iyo cilmiga kale oo diinta iyo kan adduunyadaba in la barto unbaa lagu kasban karaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.